السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان ardayda iyo dadka kale ku xidhan bajinkan casharada caafimaadka waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub iyo lesson cusub. Lessonkeena shanaad ayaan maanta ku soo gabagabayn doonaa cell biology-ga. Cell biology-guna soo wadaagsantihiin waxaan ka siin doonaa overview maadadaas overview baan ka wada siinayaa waxaan ugu muhiimsan waxa cellka la yiraahdo introduction-kiisa hore aan soo qaadanay. maanta waxaan ballanaa bil organelles-ka ku dhex jira qayb horena waxaan ku soo aragnay lesson 4-kii qaybtana bil lesson 5-ka marka ku shaarki doonaa. waxa jira maanta wax la yiraahdo fasciculus. Fasciculus-ku waa san wadaagsanay. Fasciculus-ku waxa la yiraahdaa waa kuwa wax transport gareeyay wax bay qaadan waa gaadiid weeye. maxaa kamid ah fasciculus-ku waxa ku soo dhex jira wax la yiraahdo lysosomes kuwaas oo digestive enzyme ah wax burburiya iyo waxa ku soo dhex jira kuwa proximos. Proximos kuna waa detoxification enzyme waa enzyme soo daaya sun soo deynaya kaasoo ku burburinaya wixii foreign bodies-ki jirka soo galay cadawga ku ahaa waxaas markaa burburinayaan. classified by their content marka intaas loo kala qaybiyaa labadaas loo kala qaybiyaa content-goodana mar yihiin lysosomes waa kuwa digestive enzyme oo marka enzyme-ki burburinaya iyo mar ahayn proximos oo detoxification enzymes ah. haddaan ku socono protein synthesis samayska proteinka daraf in the plasma reticulum Golgi apparently and fasciculus-ku waa ku xaw shaqeeyaan tukada si wada jira to transport gareeyaan u qaadaan protein-ki to their destination una qaybiyaan inside-ka gudaha iyo outside-ka banaanka dasal unuga. banaanka unuga iyo gudaha unugaba labadaba waxay u kala qaybiyaan proteinada iyagoo wada qabanaya shaqo isku mid ah oo ah gaadiid ah inay wax qaadaan. samayska protein-ku processing-ka ay marto bil protein markii samaysmayso kow waxa ugu horeeya calaamada casaanka ah eegaysan kow waxa ugu horeeya protein are made by the ribosome on the ref ear. protein-ka mar walba waxa sameeya ribosome-kaas marka ku sii dhex jiro on the ref in the plasma reticulum-ku balka labadan eegno fasciculus-kuna hada fasciculus-ka dab kaari waxay qaadayaan protein-kii la sameeyay from the ref ear marka laga keenay qaadayaan tu waxay geenayaan Golgi apparently. hadaba Golgi apparently muxuu qabanayaa protein-kii are modified in Golgi apparently hada protein-ku uu kala qaybinaya aan internew fasciculus cusubna meeshii ayuu oggolaanaya inay soo galaan. hadaba fasciculus soo galay hadaba qaar kamid ah hadan ka afraad eegno fasciculada qaar kamid ah release waxay soo deynayaan their protein bu soo deynayaan outside waxaan u sii deynayaan the cell outside the cell marka banaankiisa ay protein u sii deynayaan. haddana la marshan dadka fasciculada kuwii kale haray fasciculada kalena ee shaqada kuwii qabtay maahan shaqada afraad kuwii qabtay maahan shaqada kuwii kale hadaba waxa u dhaqmayaan iyagu inay cell-ki ku xaraan kuwaas oo hadhowna markaa noqonaya lysosome noqonaya. cytoskeleton-ku is made of protein ay ku samaysan fibers kuwaasoo markaa caawiya cell-ka inuu dhaqdhaqaaqo joogteeyana their shape-ka qaabka markaa cell-ka joogteeya. cytoskeleton-kuna wuxuu ka kooban yahay saddexda microtubules kuwa la yiraahdo iyo microfilament iyo kuwa la yiraahdo intermediate filament. saddexdana idinka baahanay inaad comment-ka ku soo qortaan waxaad ka fahansantihiin. cytoskeleton hadan si wado cilian flagella are hair-like structure waa qaab sida timaha kala gaadiga istan kuwaas oo ku fidsan from the surface ogada sare of the cell unuga weerday kuwaas oo assist ka caawinaya movement socodka. flagella sawid ogtihiinba waxa weeye waa timaha waa flagella waa dibka sida spermka oo kale tusaale spermka ayaa tusaala ciliadana waxa arkaysan timo sankaaga markaad eegtid timo aad ku dhex arkaysid kuwaasoo cilia marka kuwaasina waa tusaale ayuu yahay. haddaan ka socono centrioles-kuna haddaan si guud ku sheego consists of two short cylinders of a microtubules at right angle to each other and are involved in cell division. centrioles-ku mar walba cell division-ka ay ka qayb centrioles-ku waxa kala qaybiyaan marka waxay dhacaan centrioles-ku ay maadaan marka cell-ku qaybsan sameeynayo ay maadaan marka kuwaasoo marka u kala qaybinaya cell-ki laba cell oo marka iyagu isleeg u kala qaybinaya. marka waxaad ugu baashali doontaan ama aad ugu baran doontaan marka la joogo mitosis-ka iyo meiosis-ka labadaas ayaa marka aad looga hadlaa. marka mitosis-ka iyo meiosis-kana bal mar gaar ah ayaan isbarbar dhigi doonaa oo marka si wacan marka uga bogan doontaan.